bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu meel kastoo aad joogto ood muuqaalkan ka daawanayso magacaygu waa maxamed cabdulaahi aadan meel kastoo aad joogtaan waxaan leeyahay waqtigu ha idiin wanaagsanaado mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijyadii aad school academy uga barateen dhowaan ayay ahayd markii aan idinla soo wadaagay haddii aadan arkina qaybta hoose ayaan linkiga dhigi doonaaye muuqaal aan dadka ku tusayo sida looga faa'iidaysan karo wax loo yaqaano artificial intelligencega ama AI-da gaar ahaan muuqaalkaas wuxuu ku saabsanaa qaabka aad AI-da ugu isticmaali karto muuqaaladaada. AI-da wax weyn ayay bedelaysaa marka ay noqoto dhinaca hal abuurka. waxaan loo baahan yahay haddaanu nahay Soomaali inaan sidoo kale la soconno oo la jaanqaadno wax walba oo markaa cusub si aanan uga harin dadka kale. Marka School Academy mar walba waxay diyaar u tahay inay idin update garayso, inay idin tusto qaabka aad u isticmaali kartaan teknolojiyadda hadba soo kordhaysa. waxaan rabaa maanta inaan ka jawaabo su-aalo maalmihii dambe aad soo weydiinayseen oo ku saabsanaa Photoshop ma haysto, computerkayga waa culus yahay, waxyaabahaasoo dhan. marka waxaan rabaa hadda inaan idin tuso qaabka aad u isticmaali kartaan iyadii oo ah web based ah ama qaab oo website ahaan ah loo isticmaalay halkii markii hore ay ahayd app aad ku soo dejisanayso computerkaaga soo dhexdhigayso deetana markaa aad isticmaalaysay markaasoo ay kula isticmaalaysay CPU-gaaga iyo computerkaaga kula isticmaalaysa. laakiin hadda iyadiyo waxaa jirta oo app ahaan ama website ahaan aad u isticmaalayso. waxaad tegaysaa Adobe. marka hore waa qasab inaad leedahay account inaad samaysato. waa bilaash account-ka samayso, emailkaaga ku samayso, magacaaga ku samayso. account-ka waxaad ka samaysan kartaa waxa loo yaqaano Creative Cloud oo waxaa jira oo desktop ah. marka Creative Cloud-ka markaad gasho ood furto dhinaca gacanta bidix waxaad ka arkaysaa halka ay ka muuqanayaan ababka iyo barnaamijyada kugu jira. qaybtaas ayaan ka rabnaa ay ku qoran tahay Adobe Firefly ay ku qoran tahay. markaad horteeda ku dhufatana gantaa yar markaad ku dhufato wuxuu kuu furayaa website ahaan ayuu kugu soo furayaa. marka looma baahna inaad appka download garayso sida halkan aad ujeedo. appkan inaad dejisatid ababkan looma baahna. waxaa markaa isticmaalaysaa qaybta webka ayaad isticmaalaysaa. waxaan filayaa taas inaad fahantay. markaad halkaa ku dhufato gantaa ku dhufato waxaa kuu soo furmaya pagekan ayaa kuu soo furmaya. marka haddaa rabtana halkan eeg markaad qorto www. markaad qorto kadibna firefly.adobe.com halkaasaad ku dhufanaysaa. halkan markaad timaado waxaa kuu soo furmaya qaybtan ayaad arki doontaa oo ku tusaya waxyaabo badan sida loo isticmaalo barnaamijkan cusub ee Adobe Firefly loo yaqaano oo gebigiisba ku saabsan artificial intelligencega ama AI-da ku saabsan oo dadka hal abuurkooda wax weyn ka bedelaya. marka qaybtii hore ee muuqaalkayga aan hoos dhigi doono aad ka aragtay waxaan isticmaalaynay qaybtii ku qoran tahay generative field. qaybtaas ayaan isticmaalaynay. laakiin hadda qaybo badanaa isticmaali kartaa. waxaad isticmaali kartaa qoraal inaad u bedesho musawir oo kale. waxaad isticmaali kartaa inaad qoraal ku qoran inaad markaa aad wax ku xarxardha ku darto oo kale. waxaad kaloo halkan ka isticmaali kartaa inaad decor oo kale ama waxyaabaha masawirada guryaha lagu dhajisto oo kale iyo waxyaabahaas oo kale inay kaa caawiso inaad samayso. halkan oo kale inaad sketch ama masawir caadi ah inaad u bedesho sidii wax gacanta lagu sawiray oo kale inaad u bedesho kale. iyo qaybtan kale oo ah inaad wax 3D ah inaad ka dhigto masawir ka dhigto. marka waxyaabahan oo dhan halkan waxay ku tusayaan waxyaabaha lagu sameeyey qaybahan dadku ay sameeyeen si markaa aad fikir uga qaadato oo ay fikirkaas siiyaan adna aad tiraahdo okay anna waa samayn karaa waxaan oo kale haddaad hore usii fiiriso. marka waxaan rabaa inaan ku tuso qayb tii aad horey muuqaalka usoo aragteen. la soco pagekeena YouTube-ka subscribe ku samee si aad ula socoto qaybaha kale ee soo socda oo aan qaybahan kale ku eegi doono maadaama hal cashir aan dhammaan kusoo koobi karin. waxaan isku dayayaa inaan mid markaa aan idiin tuso waxyaabaha aad ku samayn kartaan runtii ah waxyaabo aad iyo aad cajiib u ah. markaad waxaan rabaa qaybta generative-ka inaan qaybtii hore inaan ku tuso waxyaabaha kale ee aad ku samayn karto markay noqoto masawir. dadka photographerska ah ama masawirada qaada qayb aad iyo aad u anfacaysa iyo sidoo kale dadka sameeya graphic design oo kale iyadana aad u anfacaysa.
hadda marka qaybtaan ku dhufanaynaa dhexe waxaan leenahay tag halkan waxaan tagaynaa masawiraan kusoo darsanaynaa masawir halkan noo yaala masawirkaana halkan noo yaala masawiraan soo geliyey soo jeedi sidaas oo kale masawirku soo gelinaysaa masawirka hortiina yaala waxaan kasoo qaadayaa inuu yahay macaamilkayga oo kale qof oo stuudiyahayga yimid oo masawiraan ka qaaday ama qof aan portrait kasoo qaaday banaanka uga soo qaaday oo kale inuu yahay kasoo qaadaya kamuusan helin shaatiga iyo funaanada kuu muuqata kamuusan helin wuxuu rabay guluusyaha inuu xirto oo kale tusaale ahaan ama wuxuu rabayba inuu suud xirto oo kale marka wuxuu ku yiri waa ka xumahay sidaan ma rabin midda kale backgroundka kamuusan helin sida ujeedo wuu jaban yahay backgroundka kale marka adigi marka waxaa lagaa rabaa inaad hal abuurkaaga isticmaasho inaad tira okay ii sheeg wax allaala iyo waxa aad rabto inaan masawirkan ka bedelo wuxuu ku yiri kow marka hore ma ii samayn kartaa inaad dharka iga bedesho haddana wuxuu ku yiri niyahow backgroundka kama helin marka backgroundkan ma iga bedeli kartaa su-aasha labadan weydiinaa macaamilka waxay tahay dharka aad rabto inaad kuu xiro maxay tahay wuxuu yiri shaatiga midabkiisa basaana ka helin laakiin fanaanada iyo waa ka helay ama wuxuu ku yiri maba rabinba shaatigan iyo fanaanadan waxaan rabay suud anoo xiran halkaas marka sheekadu noo marayso waxaan rabaa marka inaan macaamilkaas inaan qancino marka ila soco marka waxaan sameynaynaa markaan masawirkii macaamilka aan kusoo daray Firefly-ga markaan kusoo daray ama xataa haddaad isticmaalayso Photoshopna waad ku samayn kartaa Photoshopka caadiga ahaa haddaad isticmaalayso laakiin waxaan rabaa inaan idiin fududeeyo dadka ka cabanaya computerka culus iyo waxyaabahaas ka cabanaya inkastoo kan webka laftigiisa uu qayb yar oo ka mid ah CPU-gaaga uu isticmaalayo waxaan ka bilaabayaa inaan dharka ka bedelno halkan eeg marka 3 qaybood ayaa halkan noogu yaala qaybta kore waxaa la yiraahdaa insert oo ah geli qaybta ku xigtana waxa waaye remove oo ah ka tir ama ka saar qaybta hoosena waa pan oo ah inaan gacanta aan dhaqaajin karo musawirka remove aan dooranay waxa ku soo baxaya brush gacantii sida u jeeda gacantaas waxay isku bedelaysaa markaan remove doorto brush ay isku bedelaysaa brushka maxaa waaye waa brushka caadiga ah wax lagu tiro marka rabtid inaad qalad samaysay oo ka laabatid waxa ku dhufanaysaa clear qaybtii ku qoran tahay oo ah nadiifi halka markaan joogno oo remove-na ay noo joogto waxaan dooranaynaa dharka aan rabno inaan tirno fiiri halkaasaan ka bilaabayaa waa tirayaa waxaan ku noqonayaa ban si aan kor ugu qaado masawirka kor aan u qaatay kadibna remove aan ku noqday si qaybtaan aysan iiga qarinaan rabaa qaybta aan tirayo halkaas markaan marayo waxaan tiraya maxaa weeye dharka uu wataan tirayaa halkaasaan tigayaa dhib ma laha hataa qayb ka mid a qoortiisa iyo waxaas aad tirto dhib ma lahan iyo haddii uu ka baxo xayndaabka aad ka baxdo kale wax dhiba ma lahan AI-da waxay isku dayeysaa inay isticmaasho waxa loo yaqaano algorithmkeeda si ay u fahanto ujeedadaada halkaa markaan sameeyey oo aan tiray dharkii u watay markaan tiray waxaan sameynayaa waxaan rabaa inaan marka AI-da iraahdo qaybtan aan tiray waxaad iigu bedeshaa waxaan iigu bedel markaas waa marka la rabo inaan isticmaasho wax loo yaqaano prompts oo ah waxyaabaha AI-da lagula hadlo ardayda inta badan markay yiraahdeen macallin waxaan rabaa inaan AI-da ku shaqaysto AI-da barto hal wax baan iraahdaa marka hore baro maxay tahay halka waxa weeye sida prompt loo qoro prompt waxa weeye AI-da sida loola hadlo AI-da haddii aad la hadli karto wax walba oo aad u baahan tahay bay kaa caawin kartaa marka halkaa markaan joogno oo aan dharkii ka tirnay waxaan rabnaa inaan AI-dii hadda u sheegno oo dhahno ninkan waxaad u gelisaa suit u geli maxaan samaynayaa haddana waxaan ku noqonayaa qaybtay ku qoran tahay insertan ku noqday waa kana halkan markaan insert doortay isla qaybtan hoose waxaa ii soo baxday soo ma jeedid ay ku qoran tahay describe the image you wanted to create qeex musawirka aad rabto inaad samayso ama aad abuurto marka halkan markay marayso waxaan rabaa inaan hal erey bas ku qoro maxaan ku qorayaa SUIT maxaa waaye suudka aan xiran marka waxaan rabaa inaan dhaho ninkan meeshaan aan ka tiray dharkan aan ka tiray waxaad u gelisaa suud u xir inaan dhahdaa rabaa AI-da kadibna waxaan leeyahay generate kadib marka waxay samaynaysaa 3 option bayna siinaysaa optionka koowaad oo hadda automatic kusoo bixi doona iyo 2 option oo kale oo aan kala dooran karno marka aan sugno waa kana sida u jeedid suit ay u gelisay waxyaabaha la raba inaad si gaara isha ugu hayso waxay tahay wax loo yaqaano perspective
koorsooyinkayga haddaa qaadatay inta badan perspectiveka qaybta photoshopka haddaa iga soo baratay ama aad qaadatay aad bay muhiim u tahay perspectiveka. laakiin perspective waxaa la yidhaahdaa hadda originalkii musawirka halkaan ii yaalaa waa kana aan soo dhawaysto saa wax yar kuu tuso. waxaa la rabaa inaad fiiriso qofka madaxiisa, garbihiisa, iyo inaad fiiriso weightkiisa ama miisaankiisa qofka inaad fiiriso. taa waxay muhiim u tahay haddii qof madaxiisa uu sidan yahay aad saarto body ama jir dhuuban aad saarto, dadku way fahmayaan inay waxaan yihiin wax la isdul saaray. marka sheekadu inaysan sahlanayn soo ma jeedid, sababtaa waa inaad dadka ka gado in madaxan iyo boodhigan ama jirkan kale inay isleeyihiin. taasaa marka waxaa la rabaa inaad fiiriso perspectiveka ama xajmiga garbaha qofkoo kale, inta u dhaxaysa garabkiisa iyo dhagtiisoo kale, madaxiisa, waxyaabahaas dhan fiiriso. haddii kale waxaa kuu soo bixi doona sida dad qaar aan ku arkay photoshopkii intay ku sameeyeen waxyaabaha qaar aan ku arkay internetka, qof madax dhuuban leh oo jir buuran la saaray iyo qof madax weyn leh oo jirkiisa dhan la yareeyey. marka taas inaad iska ilaalisaa la rabaa. halkan marka eeg hadda ma xuma, laakiin qofka hal abuur kale ama qofka artistaha ah ama wax sameeya waxaa loo baahan yahay inuu dhowr indho kale leeyahay, macnaha inuu ka indho badan yahay dadka kale, sababtoo ah detailska yaryar wax yar oo adiga aa ilowday aa dadka hore kasoo qabanayaan. hadda haddaan qaybtan dhaafi lahaa sidaa ujeedo meeshaas waxaa ka muuqda wax yaroo madow ah ka muuqda, marka macquul ma ahan. marka kanna ma anfacayo, kan kalaan fiirinaynaa, weli madowga halkaas ku yaala, waa ka laabanaynaa, ma rabno. kan ayaa macquul u eg, wuxuu ku qariyey kuleetiga jaakada ayuu ku qariyey. halkan marka saddexdiiba haddii ku anfici waayeen qaybtan ay ku qoran tahay more ay ku qoran tahay ayaa kusii dhufanaysaa. wuxuu sameynayaa saddexdii hore o dhan uu ka tegaya, wuxuu soo saarayaa 3 kale oo cusub. waa tahay halkan marka eeg wuxuu soo saaray 3 kale oo cusub oo soo saaray. marka qaybtaas yarta ah oo gadaashiisa garkiisa iyo iska qabanayaan jaakada wax cadaan ah ku yaala ayadana nama anfacayso. inkastoo aan bedeli doono backgroundka oo markaan backgroundka badan laga yaabo inay qaybtaasi ay hagaagto, laakiin kan nama anfacayo. midda kale waxaa iska ilaalisaa sawirka originalkiisa markaan ku laabano wax gacmo ah ma lahayn, soo ma jeedo qofkan gacmihiisa looma jeedo, laakiin ayada waxay isku dayday inay qofkii gacmo kusoo darto. marka iska ilaali gacmahaas oo kale, iska ilaali, sababtoo gacmaha inta badan waxay dhibaatada ku keenayaan waxa waaye inuu jirka qofka iyo gacmuhu ay ismatch gareyn waayaan oo iskeeni waayaan. marka gacmaha marka ma rabno. kanoo kalean qaadanayna, kanoo kale waa fiicanya, qaybta yartaa madowdii weli ku taalla. inta aan cancel dhaho, intaana more dhihin, sababta oo madowga yarka ah uu usoo saaraya waxay tahay halkan eeg qaybtaas madow ayaa ku jira, marka madowgaas uu dhaafaya. marka maxaan sameynaa remove aan ku noqonaynaa, madowgaas yarka aan tiraynaa, soo jeedid madowgaas yarka ah ayaan meesha ka tiraynaa. okay, hadda waxaan leenahay marka insert, kadibna ereygaan qoraynaa sut, deetana waxaan leenahay generate. hadda marka madowga yaraa oo haddayna wareerinayay sooma saarayo, sababtoo ayada caqli ma lahan oo sida biniaadamka kale ma ahan. iyada wixii aad u sheegto unbay qaadanaysaa. kanoo kale waa ma xuma, laakiin waa kanoo ah mid kale aan dooranaynaa. markasta waxaan fiirinayaa midka ugu fiican ayaan qaadanaya, inkastoo aan weli si fiican ugu qanacsanayn, laakiin haddana aan kan dhaafano. hadda marka maxaan sameynay hal su-aal oo macaamilkii ayaan ka jawaabnay. sawirkiisii sidaan ahaa, originalkiisa oo sidaan ahaa, uu yiri waxaan rabaa inaan rasamigayga ama cv-gayga aan saarto shaqo ku dalbado. marka casual dharkan waxaa la yirahdaa, qaabka labiskan waxaa loo yaqaanaa waa casual. waxa waaye labis iska caadi iyo magaalo lagu tago xilliga samarka oo kale, gulusyaha la furto, fanaanada ay muuqato oo kale. marka wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaan professional u ekaado oon saarto profilekayga oo qof professionalna u ekaado. maxaad samaysay? sidaan ayaad u bedeshay macaamilkii. hadda marka wuu qanacsan yahay, wuxuu ku qanacay dharkii inaad ka bedeshay. wuxuu rabaa haddana inuu backgroundka aad ka bedesho. maxaan sameynaynaa? waxaan dooranaynaa remove mar kale. kan marka hore wuxuu kuleeyahay safe dhaho, because waa inaan keep dhahno. marka hore keep aan leedahay kan, kadib remove aan leenahay, kadibna waxaan leenahay background. eeg marka backgroundka bedelne. marka backgroundka si uu u soo baxo background qurxoon oo shaatigiisa cad uu soo saaro,
waxaan isticmaali karnaa colorkaan rabno marka bal laba color aan eegno okay marka hore waxaan leenahay insert ayaan leenahay haddana deetana waxaan leenahay add background no waxaan leenahay bal markaan blue aan dhahno blue background okay add promptiga aan ku sheegay waa sidaas inaad ula hadasho AI-da ula hadasho hadda marka maxay samaynaysaa waxay bedelaysaa background buluug ah ayay noo soo dhigaysaa oo midabka buluuga ah aad iyo aad kan koowaadba waa la dhacay inkastoo geeskaas meesha sirtaa ay ka caddahay maya kan kama helin kanaan fiirino aad iyo aad kan aad u fiican yahay soo ma jeedid marka waxaan rabnaa inaan dark ka dhigno maadaama uu dharkiisa uu madow yahay maxaan sameynaynaa cancel aan leenahay kadibna waxaan leenahay blue meesha ah eragaas aan bedelaynaa waxaan ku bedelaynaa dark oo ah madow aan ka dhigay soo ma jeedid marka buluugii waxaan ka rabnaa inuu mid madow maadaama dharka uu wato suudka uu madow yahay okiyaaluhu madow yahay timihiisana qaybo kamid ay madow yihiin marka waxaan rabnaa inuu kusoo baxo midabka shaatiguna waa caddaan yahay soo ma jeedid kanoo kale aadaan uga helay wuxuu noqonayaa studio camal uu noqday waa grey camal wey aad iyo aad kan ma xuma sidaa ujeedid soo ma jeedid masawir fiican background fiican ayuu noqday halkanoo kale xataa markaad sii eegto kanoo kale xataa ma xuma wuxuu noqday background studio oo kale oo aad iyo aad bokeh leh ama wax loo yaqaano blur background ah ma xuma hadhow marka waxaan samayn karnaa qaybahaas yaroo cadcad photoshopka caadiga intaan masawirka geysano ayaan qaybahaasoo kala saxi karnaa marka ama crop aan ku samayn doonaa masawirka intaan qaadano laakiin dhegtaas kamaana helin marka waxaan sameynayaa kanoo kale aan fiirinaa kanoo kale marka hal mar waxaan leeyahay cancel marka waxaan leeyahay dark meesha aan idhi waxaan leeyahay black kanoo kale maxuma light waxyaabahaas wuxuu ka wadaa lightka ama studioha lightkiisa geesaha ka qabanayo ka wadaa ma rabno marka soo ma jeeda kanoo kale ma fiicna soo ma jeeda wuxuu ka wadaa waxyaabahaas caddaanka haddaa isweydiinayso wuxuu ka wadaa marka dharkuna madow yahay backgroundkuna xoogaa uu madow yahay macnaa wuxuu isleeyahay studioha reflectionkiisii ayay rabtaa inay markaa ay samayso marka waxaan sameynaynaa haddaay keennii hore ereygeennii hore aan ku noqonaynaa soo ma jeeda hadba saan u bedelayo inkastoo aan bedeli karo cagaar aan ka dhigi karo haddaan dhahno oo kale green oo kale fiiri green oo kale mid qurux badan kusoo baxaya green oo kale inkastoo greenka inta badan professional la isticmaalo laakiin aan dhahna green oo kale waxaan ka dhigaynaa inuu green marka greenka saddex uu ka dhigi doonaa mid light ah oo fudud mid dark ah oo madow oo mugdi ku jiro iyo mid oo markaa dhexdhexaad ah waa kana greenka waa ka helay aaduu u fiican yahay qaybtaas yartaa hadhow waan ka tiri karnaa crop aan ku samayn karnaa qaybta kale haddana qayb kale waa kana haddana qayb kale waa kana soo jeed hadba waxay ku xiran tahay choicekaaga ma marka qaar iska ilaali studio backgroundka wuxuu bedelayaa timaha fiiri markaan timaha fiiri marka timahana waa inaad iska ilaaliso halkaa markay maraysa keep ayaan dhahaynaa kadibna waxaan leenahay download ayaan leeyahay masawirka download garee waa tahay markaan isbabar dhigay labada masawir sidaa ujeedo hortiina clientigii ama macaamilkii su-aalihiisi waa ka jawaabnay wuxuu yiri shaatiga kama helin marka waxay iga dhigtaan suudaan u xirnay wuxuu yiri backgroundka xoogaa meelaha jajaban kama helin waxaan ka bedelnay backgroundkii midabkuu doortaan ku bedelnay marka masawirkii sidaan ahaa ayaan sidaan ka dhignay marka hadaaye waxaan ka hadlay waxa la yidhahda perspective oo kale ama wax perspectiveka loo yaqaan marka hadda marka labada masawir aad isku fiiriso kan ayaad moodaa aan sameynay inuu dhuuban yahay marka haddii AI-da aan ku celcelin lahayn marka dambe waxay keeni lahayd qaybta saxda ah ayay keeni lahayd marka taasna inaad ogaatid iska fiiri marka aad wax bedelayso inaad isleeyihiin qofka qaybta aad ka bedelayso madaxiisa iyo qaybta hoose inay isleeyihiin oo kale marka waxaan filayaa inaad halkaa aad wax ka barateen qaabka loo isticmaalo Adobe Firefly-ga adoo isticmaalaya qaybta webka adoo isticmaalaya halkii aad ka isticmaali lahayd qaybta Photoshop-ka oo aad ka cabanayseen intiina badan computerkiina uusan xamili karin oo CPU-ga oo dhan uu markaa boqolkiiba boqol u tagayo oo markaa ay dhibaato ku tahay inaad isticmaashaan School Academy waxaad ka baran kartaa waxyaabaha oo digital ku saabsan hadda waxaa diyaar noo ah oo qaybta hoose aan dhigi doonaa koorso oo markaa ay 10 qof oo kaliya ah ama 10 kursi kaliya ka bannaan tahay cadadkii aan ugu talagalay in aan qaabilno waxaa ku baran doontaa waxa loo yaqaano SEO oo markaa ka caawinaya
ama adiga kaa caawin haddaad blog leedahay, ama haddii kale inaad ku shaqaysatana aad rabto in ganacsatada marka aad ka caawiso sida ay u isticmaali karaan SEO-ga. marka koorsadaas waa diyaar, linkiga waxaan gelin doonaa qaybta hoose aad ka heli karto. intaan dib dambe u kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.